warkalamaanay waxaa la yidhi dulmi qura dharaartii loo tuma durbaanada daacaddiiyo xaqiiqdiiyo dayacmaa wanaagguna waxba kama dambeeyaan. war axmedow mugaangaariya wuxuu yidhi nin daweel la leeyahay dembiguu badh leeyahay inuu daara ma oggola daaraanta qoonta leh. wargaboosow dad bay meeli bugtaa dad bay meeli bugtaa nalaeri warmadeeyow lawoy dawa caafimaadey darmaan qurux laguma riimay dareenka naftayda kiciyay na waa la yidhi wartiyamoanna waxaan maqli jiray durdurageel baa ku jabay damaacina waa xuyaay dalkuna waa lama huraan dadkuna waa lama huraan. war axmedow waxaad ka tagtay waynaan dareemine dadka kii dhergow daran dilaal iyo malaal iyo debu socodna waysaga. wargaboosow dog guursidii iyoonay doon abuuridii daa'inkay me'eeda doohoraa lindhammaaye na jarta aryadhaha kulligiin waxaad ka tagteen nadaadihii walaalow nadaadihii abdullo adin waliba hilmaantaye dawladnima jir dawladnima joog daacadii mahungowde war anaguna dadweynahaan hanuuninaa hasaawinaa danta u hagnaa. war waxaa kaloo la yidhi xoogga dalka iyagow dadaal daawa aynu yeelanne. aryadhaha kalemaanay hees waa soo dhaafteen waxaan dhihi lahay dabuubtiyo siday sheegayaan hadal aan duugoobin dadka hore markay ay arkaan shay dayacan yaalla duruxul iyaga oo kiilahay kula dardaarmaaya digniin iyo waxay tabi jireen waana dulucdeede mahmaada diiwaanka iyo maqasho doodiiye dalkeennii haddii aan nacnoon cididar yeelaynin qof walbana dantii gaara iyo xagabsii doonaayo degmo kalena aynaan lahayn waa dabaallimoe goormaanta miirkiiyo caqligii dibannay waa yaab doobnimaaday muku dogowne deersingaan lahaa kii warnimada aniguna waxaan dhihi lahaa dugsi macallinkiis booli cuno diinti laga raajay waa midaan ardayga doonayaa garan dantiisiiye duqow diiratahoo rabshada darar ku maalaysa madax dooxatahoo xaqii daha laga saaray duniya akhirsamanoy talshaan daalimkiiyo tuuggu dusha waajib kaa fuulay waa labada daafoode waryaan looga darin maanta bay daawo leedahay. aryadhaha waxaa kaloo la yidhi daanyeerkii nin daabana weyn ka daaqay beertaa waa daabal daanyeerkii nin daabana weyn ka daaqay beertaa waa daabal. warwar ma haysaana soomaaliya waxaa la yidhi waxay noqotay dalka adduunka ugu musuq maasuqa badan kaalinta koowaadna laguma haystaa la yidhi. musuq maasuq soomaali waa meehradeeda iyo dheegi jiray saha nagatay ma beertaa layska daaqay qarandumisba qarandumis kaluu qaabki leeyahaan maqli jiri. war meel uun lambarkow haddaan ka naqanno waa noo dhacatay hambalya dhah shamsay xumaan lambarkow loo galay hambalyo ma lehe warya eberadaanta awguuriya dheh xaggaa loo guuraa warwarka iga walaaqinin ee hay-adda international transparency waxay tidhi soomaaliya waxay noqotay waddanka adduunka ugu musuq maasuqa badan muddo dheerna way ku jirtay liiska hal mar baa loo maleeyey inay ka soo baxayso ka soo kabanayso haddana way ka sii dartay. war waxaan maqli jiray ceeryaha ha marinnina maatada ha jalinnina weelasha ha murugsana marka waxaa la yidhi markii doorashadu bilaabatay ayaa weel kasta la soo murdiyey. war 2 toddobaad ka hor hanti dhowraha qaranku wuxuu yidhi boobka hantida dawladdu xadkii buu dhaafay xataa wuxuu yidhi lacagtii koronafayras adduunku ugu tala galay siyaasad baa loo isticmaalay oo meel ay martay lama hayo meel loo dacwoodona ma laho xataa madaxtooyada fartu ku fiiqa. war abaarti dabadheer waxaan dawlada ahayn waxaan maqli jiray dadka iyaga xantiiree xaalufi abaaruhu ay xagal ka daasheen luunigooda kii xada xasda ee waxyeelow cudunta iyo beerki iyo xubna iyo dhabarki iyo halka xabadka lagu qabay. war sheekada musuq maasuqu hay-ad iyo hanti dhowro waa soo dhaaftay dawladaha maraykanka iyo ingiriisku waxay dhaheen lacagta doorashada bixin mayno sababtoo canshuurta dadkeenna laga qaado meel aan la ogayn inay ku baxdo lama aqbali karo taan hore u bixinnana ilaa hadda caddayn kama hayna meesha ay ku baxday iyo sida loo isticmaalay. waxaan na ogaanay ilaa hadda xubnaha baarlamaankee la doortay inaan beeluhu heshiis ku ahayn musuq maasuq iyo iskadaba wareejisna ay ku soo baxeen taasina maahan bay yidhaahdeen daahfuraan iyo doorashadii la rabay midna waxayna dhaheen arrintaas waxaan kala hadalnoon u sheegnay madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo midowga musharaxiinta. war axmedow hadda kahor arday xisaabta ku adagtaa macallinkiisa waxa weydiiyey macallima xisaabta maasayniska laga saaro markaas wuxuu u jawaabay maandhowlaan
la'aantiis ma shaqay karto marka hadda Soomaalidu musuq maasuqlaana ma shaqay karto miya aryaadaha Soomaalidu musuq iyo maasuq xabad iskuma dhaanto madax iyo maje kulligoorna waxay naqdeen qaade iyo qarshe ma waan hore loo dhihin musuq ya maasuq maal maahan ma maqnaa waana muuqaya musuq ya maasuq maal maahan ma maqnaa waana muuqaya oo hadda Soomaalidu turub big laan ama dheeraan latina warmaday turubka biiga laga saaro waa hore u dambeysay waxa la yiri doorashadan la musuq maasuqiyo murankan dheeraaday la meeraysa Soomaha iyo si mudada dhaaf araan helsadka aalasmay awba imrishe waleeri warnaa u doorashadan waqtigeedii dhaaftay lagu danaysaa ku dalinay waxaan dhihi lahaa Afrikaankan shalay midi qabtay madab ku taageeray maanta inaan ka liitaa huwa maagiya amankaaga hayashe ma hay beeshay aan doqon malaysayne bal aan miisnaya nagu maqnaaya samici noo ah xasan nalan ku maagay oo fidnada madaxa noo saaray marka koowa waxaan nahay islaan miiran gabigeenu marka xiga afkayna mid qura fahamka maareeya marka xiga dhulkayna uu macaan dunida meegaaran muslim iyo nasaare iyo yuhuud iyo majuusaanku waxay milicsadaan waa bugcada mawla nagu uumay maankasta waxaan ka ooyaa markay madaxda teenaahu manfac yara u xirato ee micnaha dhaba ka meermeer arshamso integrationka geeska Afrika lilay ma dheegne wararta waxaan idin weydiiyay gudoonka aqalka sare maxaa loo dooran waayay war gudoonka aqalka sare waa Cabdi Xaashiye wali waraaqihii ma joojino xal waraaq soo saaraa la yiri dastuurku iswaardii jiray la kutumadaha yeelaya shacabka Soomaaliyeed uga dhigaamo mu kala yiri war sawirada waa nagu gaadmiyuu yiri warayna warka waa kuwa la jirteen Cabdi Xaashi wuxuu yiri kuraastii gudigu shaaciyeen doorashadooda dib baan u dhignay waana hakinay si loo hubiyo inay waafaqsan yihiin hufnaanta doorashada iyo habraaci lagu heshiiyay horta waayeelka iyo waxgaradka iyo siyaasadda waqtigan maxaa isku diray wararta Cabdi Xaashi dastuurkii ma soo helay waa dhamo iyo eedam dastuurkaasu horta madeeyo kursiga jawaarixa idinku dhajiya min fadlakum nidaam ya eedi warnimay war ma haysiin odayaashii dhaqanka Puntland oo dhaxdhaxaadinaya madaxweynaha Dani iyo gaasimiye ciidanka BSF waraa ka soo baxay waxayna dhaheen madaxweynuhu dikreetadii oo soo saaray waa in loo hoggaansamo inta uu xilka ka qaadana waa soo uga qaaday hubka iyo gaadiidka iyo guryahana waxa iskale Cabdullaahi Ismaan Diyaano agaasimiye hore ciidanka iyo qodobo kale dhowr oo ay xal u arkeen laakiin waxa la yiri madaxweynaha Dani gaashaanka u daruuray go'aanka odayaasha waxauna yiri hubka iyo gaadiidka iyo guryaha iyo agabka ciidanka qofa iskale qaranka Puntland ma aqbalayo horta Puntland waxa ilaahay dhaqan lagu dhaato oo marjac u ah wax kasto maamulka ku adkaada balse maanta go'aankooda hadii la diido oo cadaalad loo arki waayo oo inay dhinac yihiin u ekaadaan waxaan u malaynayaa odayaashii koonfurta Soomaaliya oo kale inay noqdaan odayaasha dhaqanka Puntland go'aankooda waa loo arki karaa inuu dhinac yahay sababtoo ah horay Soomaalidu u tiri garan lama nin kama wada qosliso laakiin waxaad ogaataan odayaasha dhaqanka Puntland ilaa hadda odayaal dhowrsan oo aan xafiisyada dhex taagnayn oo aan siyaasiyiintu ku awrkacsan weeye nimay u dhaqan dhowrsaneen dad kale ma dhici kariyo aryaadaha dhaqan hadduu af wax cuna xishoo naqdo cid wax ka maqasha ma jirto waana kaa dhinto horaan u soo aragnay hore waliilan arayga aan daahiri oo wal daahiriyaasa armadaciiwan waxaan maqli jiray rumeey rag ma kala riixo ala kulli xaal canaanka yaa reer ma doojaan warkiina u fahmay war annagu lama canaantaana caanihi daadsayaan dhahnaa war ilmo kiinroonaya goroor ka abuuriya la ere dhaqanka Soomaaliland waa dhowrsan yahay madaxweyne Muuse Biixi wareegtu soo saaray ma dhaqanku ka mid yahay war siyaasadda iyo dhaqanku way noo kala soocan yihiin ay dhageyso wuxuu yiri cid kasto siyaasadu aada Soomaaliya cafis damba ma leh waliba wuxuu yiri haday abwaan noqoto haday siyaasi noqoto haday oday dhaqameed noqoto iyo dhammaan qaybaha bulshada waxa ka reeban inay ka qayb qaataan siyaasadda Soomaaliya haday u barteen markay soo laabtaan in la cafiyana maanta wixii ka dambeeyo waa maxkamad warka booso inta hadda doorashada ka qayb gashay ma iska joogayaan war way ka gaashaanteen oo indhaha xidheene adigu ma taqaana kuwa may ahaayeen war waxa la yiri ayamahan arrimaha socda aamin ma lahayne iyagoo indhaha soo xirtoon cidi aqoonaynin argagixisadii baan ka baqay inay wax doortaan aryaadaha war ma haysiin Sheekh Xasan Daahir Aweeso xabsiga ku xirnay ka soo waramay wuxuu yiri boqor buur madow dadka eedayhaya waa ka gardaran yihiin dhaqan iyo siyaasadna kala ma yaqaaniin boqor buur madow Axmed Godane inuu u taxsiyeeyo xaq uu leeyahay amba dambi ah loo haysto amba yaan loo haysan sababtoo ah odayow u yahay shabaab hadduu dawlad ku sheegana idinka u qirayo cadaalad dadkiinu idinka waayeena iyo ka u doonteen goobta uu buur madow ka hadlaayana odayaalaha ku kaftamaya siyaasadu kama jirin anigu waxaan maqli jiray nin geel qaba geedaha ila guuriyada war Sheekh Xasan Daahir isagu dhaqan iyo siyaasad soo kama xirnaya u dirsaday war Sheekh Xasan Daahir wuxuu yiri fiqi waxa uu taageeray
yeeray dalbiis dowladbiis iyo dalbiis iyo diinbiis waxauna saas inay yihiin ku sheegay macalin maxamuud iyo shaakir wararta xasan daahir aweys dawladdu maxay mufti u fadwoodo uga dhigan weydi sida aayatullaahiga eeraan ha looga dambeeye war sheekh xasan sheeca maahana waa sunni mayal adag warnimay oo war ma haysiina gabartii jarmalka ka ahayd ra'iisul wasaaraha waa looga guulaystay doorashadii maanta bistaynan xanaaq la nahaa haddaan dumarnahay war ayadu ma tartamina waa xisbigeeda wax laga guulaystayo tartanka xal loogu diida waa yahay war maysaan waxaa la yidhi madaxa maamul goboleedyadu guddiga doorashada madaxa bannaan inay doorashada maamulaan raali ka maaha ma musuq iyo iska dabawarjiskay rabaan nuga aryaadhaha musuq amba maasuq sheege samigay cabdulla baashaan hadda socoto wuxuu ka yidhi dugeeya wax ka daafow dugaalka kugu soo degta dugeynta wax ka daafow dugaalka kugu soo degta anaan iga daadin war dukaana nasiibu ku helo waa leeyahay laakiin nasiibu ku cabo ma laha leeyid ma la dili kara u sheegay waxaas marka yaa dukan leedahay yaa dukan leedahay